waddo waxay dabcan la isku hayo faa'iido ay leedahay waddadu xagga dhaqaalaha hadday tahay xagga isgaarsiinta ay tahay siday u gudbinayso alaabta iyo dadka siday dalka isugu xidhayso alaabtii ceydhnayd siday warshadaha u geynayso tii la sameeyey siday suuqa u geynayso way farbaatahay waddooyinka faa'iidadooda laakiin waxaanu ka hadlayna waxaa weeyaa maanta waa tiradooda waddadu intay tiro la-eg tahay aynu haysanaa iyo tayadooda waxaa jira waxyaalo fara badan oo aanay inoo suurtogelinaynin awooddeenu waxaan u baahanahay waddada isku siman oo hagaagsan oo aan burbuur lahayn oo toosan baynu u baahanna oo leh meel dadkuma maraan iyo meel ay maraan emergency-ga mataqaanaa ambalansiyada iyo dabdamiska iyo maxay tahay kuwa kan maxay booliisku markay dee shil ku cararayaan iyo waxyaalaha looga baahan waddooyinkeena waa kuwaasi runtii waxa kaloo iskala mutulsan karaa laakiin dhibaato waxay ka taagan tahay qof lala cararayo oo dhaawaca oo nafi hayso ama gabadh umulaysa yaa meel alla meel maro aanu helin laga yaabo qofkii lugeynayay inuu ka dheereeyo anigu waxaan odhan lahaa bal waxa kale iska hagaasan doonaa waqtigeena la sugaynaaye dariiqa loo sameeyo ambalansiyadu ay maraan iyo dabdamisku iyo kuwa kan maxay tahay booliiskan cararaya dee rabshadaha ku cararaya ama meel wax ka dhaceen ku cararaya